waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Daranyo waa barnaamij aan ugu talagalnay inaan ku soo bandhigno xadgudubyada iyo tacadiyada ka dhaco Soomaaliya oo ay geystaan dhinacyada kala gedisan ee ka howlgala Soomaaliya. qaybta labaad ee Daranyo waxaanu ku eegaynaa in sharciyeedkii khilaafka weyn ka dhexdhalay golaha shacabka ee Soomaaliya. baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dhalatay caro weyn kadib markii wasiirka haweenka iyo horumarka aadanaha Deeqa Yuusuf Xaaji ay mudanayaasha baarlamaanka horgeysay hindisi sharciyeed loogu magac daray sharciga galmada kaasi oo meelmarintiisu ay banayn lahayd in galmada ay ku xidhan tahay is-ogolaanshaha shakhsiyaadka kaasi oo aanan ku xidhnaan lahayn kala duwanaanshaha jinsiga labada qof. waddankan ee ku yaala geeska Afrika waxaa ka jira heerar sare ee ku saabsan xadgudubyada iyo dambiyada dumarka ka dhanka ah oo ay ka mid ka yihiin kufsiga iyo gudniinka fircooniga. qaramada midoobay ayaa qabta in 45% haweenka la guursado ka hor da'da 18 jirka inta aynan gaarin halka 98% lagu sameeyay gudniinka fircooniga. waxay ahayd sanadkii 2018 markii golaha wasiirada Soomaaliya ay ansixiyeen hindisa sharciyeedka dambiyada jinsiga la xiriira oo loogu talagalay in lagu ciqaabo noocyo badan oo ay ka mid yihiin xadgudubyada ku salaysan jinsiga oo ay ku jiraan kufsiga, guursiga, carruurta yaryar iyo ka ganacsiga galmada. sharciga ayaa qeexaya waajibaadka cad ee bilayska dambi baarayaasha iyo dacwad oogayaasha waxa uuna kooxaha nugul sida carruurta, dadka naafada ah iyo dadka waddanka gudihiisa ku barakacay uu siinaya ilaalin gaar ah. si kastaba ahaatee muddo ka badan 2 sano ayuu hindis sharciyeedkaasi horyaalay aqalka hoose ee baarlamaanka ilaa ugu dambeyntii la soo saaray hindise kale oo cusub oo ah hindisa sharciyeedka galmada jinsiga kaasi oo la harkeenay sharci dejiyayaasha Soomaaliya miyay ka jiraan xeerar adag oo ka hortagaya dambiyada xadgudubyada jinsiga la xiriira. waxaa jira qaar ka mid ah sharci dejiyaasha sida xildhibaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil oo qaba in xeerka ciqaabta Soomaaliyeed uu ku idil yahay ciqaabta dambiyaasha jinsiga la xiriira dhammaantood. kursi wuxuu yahay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ayuu ku yaalaa. kursi wax la yiraahdo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed uu ku yaalaa. kutubada islaamka ayaa sheegtay wax meeshaas looga shidaal qaadan karo si loolama tacaamulayo hadda in laga soo saaro wax cusub oo haddana magac kale loo yeero kasii faaxisho badan magaceeda la siiyo waa nasiib daro. haddaba miyay jiraan nusxaano iyo doldololo uu leeyahay xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliyeed maxayse ku kala duwan yihiin qaabka dambiyada ay u dhici jireen lixdameeyadii iyo qaabka ay u dhacaan qarnigan cusub. xildhibaan Xaawo ayaa isbarbardhigaasi uga hoga tusaaleysay golaha shacabka xilli ay doodu meel xasaasi ay maraysay. xeerkii 1968 wuxuu ahaa xeer muxuu ahaa jiro oo dalku uu leeyahay laakiin waa xeerka guud ee ciqaabta Soomaaliyeed. xeerkaas xilligiisii ma jirin waxaan aydiska la dhaho, ma jirin kaamirooyinka la duubayo, ma jirin saqiir laba jiro la kufsado, ma jirin fawaaxishada tirada badan ee hadda timid. sanka waxa la isku marnay daahyada la isugu buufinayo oo muxuu ahaa sinada lagu badinayo ma jirin. sina raali la isagay mid la isku kufsanayo. arrintaas waxaan doonaynaa in xeer u helno oo laga shaqeeyo. waxaa dhanka kale jira xildhibaano uu ka mid yahay Zakariya Gaashaan oo qaba in sharcigu uu muhiim yahay ayna tahay in turxaan bixin lagu sameeyo oo inta xun laga tago inta wanaagsanna laga qaato. waa ognahay waddanka dhibaatada ka jirta carruurta yararka loo geysanayo waa lagu qasbayaa xeer in laga soo saaro wixii khaldanna waa la saxaa. waxa ugu horeeya oo khaldan waa magaca xeerka magaciisa khaldan. xeerka magaciisa aniga waxaan qabaa in laga dhigo xeerka kufsiga iyo dambiyada jinsiga in laga dhigo. dambiyada jinsiga markaan leeyahay gabdhaha waxaa loo geystaa dembi badan oon ahayn kufsi keliya. markay shaqo meel ka doonanayso waxa weeye waa la dhibaateeya waxyaabo badan baa jira marka in laga dhiga aniga qabaa qodob.
kale Ari Gaetanis oo ah afhayeenka howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya loo yaqaano UNSOM ayaa sheegay in tallaabadaasi ay dib u dhac ku noqonayso ama u keenayso xuquuqda haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed. UNSOMna waxay muujinaysaa walaac arrintaasi ku saabsan iyadoo u maraysa afhayeenka aqalka baarlamaanka Soomaaliya ayuu yiri, iyadoo arrintaasi uu si faahfaahsan uga hadlay xilli uu waliba ka jawaabayay xiriir ay la samaysay wakaaladda wararka ee Reuters ee uu u maray qaab email ayuu ku yiri hindisahani cusub ee la soo jeediyay lana xiriira sharciga ku saabsan dembiga galmada waa mid si qoto dheer u khaldan isla markaana si weyn u jabinaya heerarka caalamiga. Gaetanis waxa uu qabaa in dib loo soo celiyo sharcigii asalka ahaa ee la xiriiray dambiyada jinsiga kaasi oo qaramada midoobay iyo in badan oo kale ay ku baaqayeen. Waxa uuna sheegay in kii hore uu yahay mid dhammaystiran oo u dhigma shuruucda heerarka caalamiga. Waxaa dhacday in ka badan 16,000 oo qof ay saxiixeen codsi khadka tooska lagu gudbiyay oo baarlamaanka Soomaaliya looga codsanayo in hindisa sharciyeedkaasi ee la xiriira galmada jinsiga laga tuuro daaqada beddelkeeda la meelmariyo hindis sharciyeedka dambiyada jinsiga la xiriira kaasi oo ahaa kii hore ee horyeelay golaha. haddaba mar haddii sharci-dejiyaasha Soomaaliya ay gaashaanka u daruureen in sharcigaasi uunan ka dhaqangelin Soomaaliya ayna dhanka hay'adaha caalamiga oo iyaguna lagu tumhayay inay ka dambeeyeen gadaal ay ka riixayeen hindis sharciyeedkaasi muujinaya anshaxa xun ay iyaguna qeexeen amaba ay muujiyeen inay ka hor imaadsan yihiin ayse taa beddelkeeda ay doonayaan in hindis sharciyeedkii hore ee la xiriiray xadgudubada jinsiga la xiriira ay doonayaan yay tahay cidda sida dhabta ah uga dambaysay in sharcigaasi foosha xun uu Soomaaliya uu ka dhaqan galo maxayse tahay danta ugu jirta.